kusoo dhawaada shabakada Kacab Media haddii ay tahay markii kugu horeysay ama soo booqatay fadlan subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. Fanaanada caanka ee Sacdiyo Siman maxaa helay fankeedii muddooyinkii dambe? Ma Fanka ayay iskaga baxday guurkeeda kadib? Ma dhabba in seegeeda uu u jeediyay in gabi ahaanba Fanka ay ka baxdo? Hadda warbixintan waxaan ku dul istaagi doonaa xog arrimahaasi. Fanaanada caanka ee Sacdiyo Siman oo waayaheeda faneed ka bilowday magaalada caasimadda ee Muqdisho kadibna u weecatay magaalada Nairobi ee dalka Kenya si fankeeda u sii horumariso ayaa maalmihii ugu dambeeyay wax heesa aysan soo qaadin. Sacdiyo Siman oo kamid ah fanaaniinta gabdhaha ee farakutiriska ee leh mustaqbal faneed isla markaana cod macaan xilliyada ay soo duubayso muuqaalada heesaheedana xijaaban isla markaana leh akhlaaq iyo dabeecad wanaagsan oo ay kasbatay taageerayaal badan ayaa muddooyinkii dambe wax heesa aysan soo qaadin. dad badan oo taageerayaal u ah Sacdiyo Siman ayaa sheegay in marka ay maqlaan codka Sacdiyo Siman ay soo xasuusanayaan boqoradii codka Allah u naxariistay Xaliimo Khaliif Cumar Magool. inkastoo fanaanada caanka ee Sacdiyo Siman ay fankeed inta ay ku guda jirto ay kasbatay taageerayaal badan, laakiin tan iyo markii uu arooskeeda uu ka dhacay magaalada Nairobi ee dalka Kenya waxaa sii yaraanayay heesaha ay soo qaadayso fanaanada. ila xoogaala oo ku dhow Sacdiyo Siman ayaa inoo sheegay intaasi ay ugu go'an tahay xilligan fanaanada oo noqotay hooyo Soomaaliyeed isla markaana dhawaan dhashay laba wiil oo mataana, isla markaana arrimahaasi saameyn xoogan ay ku yeelatay fankeeda. dadka yaqaana Sacdiyo Siman waxay tilmaameen in ay tahay qof dabeecad wanaagsan leh la dhaqanka bulshada taqaana, ilaahayna uu ku mutaystay qurux iyo sidoo kale dabeecad wanaagsan, taasi oo fududeysay in ay ka soo dhex iftiinto fanka Soomaaliyeed. Sacdiyo Siman ma ahan gabdhaha ragga jirkooda u muujiya xilliyada ay soo duubayaan muuqaalada, waxay ku kalsoon tahay codkeeda dabacsan ee dahabiga ee Alle uu ku mutaystay. markii aagno fanaaniin la mid ah oo la soo caan baxay Sacdiyo Siman waa kuwo isqaawiya inta badan oo aan xijaabnay.